khatmigii ziyaartii nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay bishan mawliidkaasay u soo bilaabatay ilaa ay ka dhammaato waa socotaa shariifkaynana waa qofkii ugu horreysay oo bisha mawliidka soo dhoweysay ayuu ku ahay haddana khatmigeedii waaye marka nabigayna calayhi salaatu wasalaam ka sheekayntiisu wax la dhamay kara ma ahan marka insha allahu tacaala aniga mawduuca mehan laygaaga qadiray oo lay qoray waa nuujinta nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markii uu dhashay la nuujiyey ayaan meeshaasaan ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaaho horta nabigayna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay maalin isniina u dhashay wuxuuna ku dhashay mowdac la yidhaaho macruufo bilciraaq si la yidhaaho maka ku yaalo haddana kuwaan sacuudiga ay ka dhigeen maktabad sanadkan marka ilaahay noo qadiray waa tagnay meesha nabigu ku dhashay meel aad u barakaysan waaye meeshaas ayaa nabiga lagu dhalay calayhi salaatu wasalaam marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dhashay maalin isniina fajarka wax yar ka hor marka waana caamul fiil markay sanadu ahayd oo sanadii oo ninkii gaalka ahay oo sanada uu kusoo duula kacamada abraha xilligaas uu dhashay marka dhalashadiisana waxaa ka mid ah markuu dhalahayay ilmaha kale waa ka duwanaay wuxuu uga duwanaay wuxuu dhashay asigoo gudan uu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay asagoo nadiifa wuxuu dhashay asagoon xundhur lahayn waxaasoo dhan waxay ka mid tahay waa wax caadada khilaafsan oo caadada laguma yaqaano waliba qudro ilaahiya ayaa guddo maahan haddaan dhakhtar guday oo makhluuqa ma jira ilaahay khaaliqa ayaa qudradaasaa ilaahay ku guday marka hadduu dhashay cunug hadduu dhashay waa la nuujihaa waxaa nuujisay hooyadiis oo la yidhaha aamina bintu wahbin ayaa maalmo nuujisay markaas kadib haddana waxaa sii nuujisay thuwayba alaslamiya yani hooyooyinka nabiga waa ay badnaayeen maxaa yidhi qofta ku nuujisay hooyadaa waay thuwaybat alaslamiya nuujisay waa abijahal markii ay ugu soo bishaaraysay dhalashada nabiga islaantii uu xoreeye waay walidaalika abilahab oo qur-aanka lagu sheegay isniin kasta naarta ayaa laga soo bixi hayaa lagu cadaabi maayo farxaddii uu ku farxay dhalashada igaarkaas walaalkiisa u dhashay oo nabiga hadda nabinimo uma farxin laakiin dhalashadaas ugu farxay qofkii marka nabiga dhalasho ugu farxa ka waran oo soo muslima waxa oo la koobi kara maaha waa ay nuujisay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo nabiga nuujisa ugu weyn